السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقف فوتبول شو إذن لسه ولا وحرجيني إن أدو في عنتين سنة نقبو في عنها الحمد لله ما أنت وحيد مالنش معاه وحرجيني أنا سيف عنو سوي بعيدستين جمعين إنه يدين وناكسنا عاو هبين سبتيا سوق لسه بريت ولا أنا وبوكسن دايجي مركاي ليرتين تينا بنوني جنب سكر كدعوتا أم بكبدة دعوتا بوكسن داي ومالنا هذا نوجو حساب بدن مركنا يجنا بريمير ليجا marka barnaamijkeena inteena aanu guda galin insha Allah waxaan doonayaa inaan hal mar ku bilaabo barnaamijkeeni PS5 kuuli waa socdaa ilaa inta laga gaarayo Champions League dhamaadkiisa marka sidii saadaashu ahayd 8 kooxood ee soo baxaysa labada finalka imanaya iyo kooxda qaada ninkii ku guuleystay insha Allah PS kaagu waa xagaaga marka ka intaasan ku soo gabagabeyn maadaama in fiidiyo badan kaga hadalnay waxaan doonayaa intaanan barnaamijkeena kala carabka ku dhufan in yaro maanta salaadii jimcee markan u socday igu soo dhacday war heede Soomaali hadayna wiil iyo gabadhba dad muslimin nahay waxa wanaagsan marka aynu iska soo horbaxno dadkan waxba iskuma hayaan inan iyo oday iyo islaan iyo waxay ka soo horbaxaba hadaad u qosashood waj wanaagsan tusto khayr ba kugu jira marka dadkeena is jeclaado waj wanaagsan istusoo isa salaama hadaydan xataa is salaameyn qosol yaro dhol cadeyn oo isku dhaaftaan waa xalkeeda waa wanaaga qofka kale waxa laga yaabaa maalin xun isagoo ku jiray oo dhibaato soo haysatay ama maalintiisu aan wali bilaamin haduu ka soo baxood u qosasho oo aad salaanto inay maalintii soo dhani ay u fiicnaato allaba u barakeeyo laga yaabaa marka qof dhan maalintii inad bedesha laga yaabaa marka dadka walaalaha ay ku dhaafayaan u qosolo waj wanaagsan tus inta waxaan ku dhaafayaa waxa yaran jeclaadeen in la share gareeyo ninta aanan u guda gelin Premier League amba waxa Boxing Day bari ciyaaraha dhacaya koobka gobolada Soomaaliya socday isaguna oo aad iyo aad u xiiso badan horta waxaan doonayaa in halka ka hambaliyeeyo dhalinyarta saxaafadda ee meesha ka soo qayb gasha qaabka ay saxaafadda iyo warka u soo gudbiyaan ciyaaraha u soo gudbiyaan plus dhalinyarta kamarada duubta ciyaaraha soo deysa meeshay doonta ka yimaadaan qaabkay doontaan wax soo bartaan nacam wali ma arag ciyaarada wadankeenu inuu dambeeyo weyn ognahay inaan wali gaadhin meelaha caalamiga ama TV caalamiga ayna qaadanin laakiin haddana ciyaaraha ka socda Muqdisho ee TV-ga laga soo deynay ama YouTube-ka laga daawanayo wallahi ciyaara ka kaleersan ma arag nacam quruxda ciyaartii sidii u socotay qaabkayga waxaad moodaa in ciyaarihi caalamiga ah daawanayso marka waan hambalyeynaya ciyaartooyga ciyaarayeen waan hambalyeynaya xirfad aad iyo aad u heer sareysa soo bandhigay aad baan ula dhacay runtii hambalyaan leeyahay waxa semifinalkii baa la marayaa Galmudug iyo Puntland baa isku soo baxay xaga kale Koonfur Galbeed iyo Banaadir baa wada ciyaaraya marka ciyaarahaasi ciyaarihii ugu macaanaa weeyaan hadda imaanayay daanu kooxdan wata amba gobolka wata koobka Puntland baa wata insha Allah waxaan rajaynayaa Puntland ku guuleysato laakiin kii ku guuleystaa waa Kenny de koobkaas waa koobka intaan waxaan ku dhaafay insha Allah ciyaarihii xalad lahaayay halka ka dhacay marka Britole insha Allah waxa dhacay ciyaarihii Boxing Day-ga ciyaaraha Boxing Day-ga highlight-ka ciyaarahaasi amba labada ciyaarood ee ugu cadcaaday waa ciyaarta Man United iyo Leicester City iyo Arsenal iyo Chelsea ciyaaraha kale waxaad moodaa inaanay waxba saa u sii waaweyneen koox weyn oo la ciyaareen marka haddaan ku hormarno Manchester United iyo Leicester City Manchester United way kacsan tahay even though Leicester City baanay ka dhicin oo Tottenham laba gool iyo waxba ay ku soo qabatay laakiin Manchester United oo Bruno Fernandes wadata Bruno Fernandes waa ka qeyliyay ninka wali ciyaartoy dhex ka ciyaara oo goolasha u dhalinay ninkan last year waxaan ku haysanay half season kii uu yimiday Bruno Fernandes wuxuu dhaliyaa rigore wax kala ma hayo hada rigoreyaasha xataa waa buu yareeyay goolal caadi u dhalinaya marka ninkan marka la isku tiriyo goolasha u dhalinayo iyo goolasha uu ciyaartooyga kala siinaya aad dhaliyaan wuxuu average ama players ka caadi ka dhigay Kevin De Bruyne oo haystay Premier League dhexdii ugu wanaagsaneed sanadii la soo dhaafay nacam hadaynu eegna xisaabta amba waxa ay sameeyaan labada ciyaartooy hada waa wuxuu case buu haystaa inuu ku murmi karno aynu meesha soo dhigi karno oran karno ninkan baa ka fiican ninkan Bruno Fernandes hada waxaan qabaa waa dhexda adduunka ugu wanaagsan
Manchester United-na sababtaa awgeed kor bay usii kacday weerarkoodu wuu fiican yahay difaaceegu waa fiican yahay nacam kalsoonidii baa soo noqotay marka kooxduna haddii mar kalsoonidu soo noqoto waa madax xanuun cid istaajinaysaa ma jirto marka Bruno Fernandes iyo tiimkiisa waxaan qabaa Beritole inkastoo Leicester Vardy iyo haystaan Maddison oo labadooduna aad u heer sareeyaan ninka Vardy weynaantii unbaba kubadiisa kusii horumaraysaaba Maddison waa waxaan qabaa ciyaartoy ka ciyaari kara any team adduunkan maanta haddii la geeyo Liverpool baa ugu tiim fiican Ingiriiska sidaynu u aragnay maadaama ay ugu dhibca badan yihiin koobkiina qaadeen haddii la geeyo Maddison uu galaya marka Maddison iyo Vardy inkastoo ay haystaan waxaan qabaa se team wali Manchester United inay ka horeyso Manchester United na bari guusho xaga ku raaci doonta haddii la hayra haddaba ciyaarta dhakafaarki ciyaarta madax xanuunki ciyaarta aan la garanayn cidda badinaysa waayo waa Arsenal iyo Chelsea laakiin anigu shakhsiyan aan isleeyahay ciyaartaasi wajiga ay leedahay amba labada kooxood halka kala taagan yihiin ay ciyaartu ku dhamaanaysaa ay kala duwan yihiin way Arsenal tawimkuuna todobadii kulan ugu dambeeyay may badan lixdii kulan shantii kulan garoonkooda ugu dambeeyayna hal mid bay barbara ka gashay inta kale waa laga badiyay taas waa mid Chelsea way fiicneed ilaa intii laga gaaray ciyaartii Everton iyo Wolves macnaheedu waa maxay laayeen inta labada ciyaarood laga soo gaaray macnaheedu waa dalama ciyaarin koox ka sareysa top 12 ka intaas ka hor intii soo badinaysay top 12 ka markii loo yimid kooxii ka sareeyay dawaadiga arkay labada ciyaarood ba waxa lagu iskaam West Ham United nasiibka uga badiyay way ciyaartu intii ay hal gool iyo waxba ay intii hore dhan West Ham waa socoto waa garaacaysa albaabada Antonio hadduu ciyaarta wax badan ba iyadan iska bedeli lahaayeen waxaan qabaa West Ham at least inay barbar kala tagi lahayn meesha Arsenal wax lagu faana ma laha marka labadii kooxood waxaan u maleynayaa inaanay meel taagnayn laakiin waxaan qabaa ciyaartani waa ciyaartii Arsenal ay garoonkooda ku badin lahayn markii ugu horeysay muddo 6-7 game ah waana 3 dhibcood ugu horeysay qaadan lahayn oo Arteta isku badbaadin lahaa ciyaartana guushu waxaan qabaa inay raaci doonto Arsenal waliba si fiican uga badin doonaan oo 3 gool iyo waxba ay kaga badin doonaan kooxda Chelsea Gus Werner wali waxa goolala laga ma hayo I don't think inuu nin kale oo nacam ka fiican oo sidii ku doodayeen inuu jiro waynu eegi Giroud bari haduu ciyaarsiyo Lampard Giroud bari haduu ciyaarsiyo wixii ka soo baxay inuu eegi laakiin shakhsiyan haddaan saadaaliyo anigu waxaan qabaa kooxda Chelsea in laga badin doono Beritole u diyaar garooba cagweynay guuldarada kooxaha kale sidooda ay u kala wada socon doonaan oo ma arko wali koox weyn oo kale ka badin karto amba koox yar la ciyaaraysa ay kooxda yar ka badin doono labada ciyaarood ee qaba bari ugu weyn waa kuwaas waxaan qabaa Tottenham Man City Liverpool in ayaguna badin doonaan haddii la hayraado bal Beritole waxa Arsenal iyo Chelsea kala raaca ciyaar lagu raaxaysto ay noqon doontaa marka bari ciyaartaas waxay noqon doontaa insha Allah ciyaar ku raaxaysano qodobkayga labaad ee doonayay inaan isagana isha yar mariyo waxa weeyaan maadaama in January galayno suuqii kala iibsigu furmayo ciyaartoygiisa marka la soo iibsaday inagoo isha marinayno kooxaha waaweyn waxay soo gateen kooxdee amba ciyaartooygeeba ugu fiicnaa baad oran kartaa Chelsea haddaynu eegno Werner iyo Havertz iyo Mendy iyo Silva iyo Chilwell intaasay keeneen Arsenal Bartebe iyo William bay suuqa la timiday Manchester United Cavani bay suuqa la timid waynu arkaynay Liverpool Diego Jota la timid xagga Torres kala timid kooxda Man City keebad isleeday marka inta ciyaartooy waxbuu ka bedelay kooxdii amba heerkii taagnaayeen bay soo qaaday ciyaartooyadiis oranaysa waa ciyaartooyga ugu fiicnaa maadaama Thiago Alcantara aynaan ku dari karin oo dhaawac badan oo galay maybe 3 ciyaarood inuu ka ciyaaray ciyaartooygii aanu winterka inta ka horeysay ugu fiicnaa ilaa samarka waxaan siinayaa Thiago Silva sababtoo ah Diego Jota siin lahaa waxaanan u siinay uu dhaawacmay maadaama ciyaarahan dambe misgareeyay soo goolal badan dhalinaya Liverpool meel fiican kaga taagan Thiago Silva 12 kulan buu ciyaaray 8 kulan wax gool lagama dhalin Chelsea marka Thiago Silva maadaama age-kiisa aynu de lahayn meel ma gaarayo anigu kamid ahaa dadkii dhaliilayay aan islahaa Premier League uu ku fashilmaya marka la eego ciyaartiisii koowaad qalad ku sameeyay 3 gool degdeg laga dhaliyay Thiago Silva sidoo uga soo kabtay
Thiago Silva isle wuxuu noqday ciyaartoygii ugu fiicnaa isagoo in yar kaga baxsaday Jota dhaawacaas awgeed uu ka reebay bartaa inaba seasonku markuu dhamaadayna waxaan isbedeli doonaan marka waynu eegi doonaa yaad isleedahay kooxdaadu way u baahan tahay inay kusoo kordhiso imka seasonka halfkiisa dambe kooxdeebaad isleedahay ciyaartoyga soo iibsatay hadda way kasii fiicnaan doonaan intan waynu eegi doonaa waaga football show idin leh kulanti dambe oo xiisa leh